adigoo sooman haddii aad geemka laadhuuga dheesho ogow dembigan halista badan ayaa ku dhacaysa nebigaa nooga digaayo calayhi salaatu wasalaam dhallinyarteena intooda badan waxay isku madadaalinayaan ay isku mashquulinayaan bisha ramadaan laadhuu iyo dublad inay ciyaaraan laakiin ogow dembigan halista badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam nooga digaayo muuqaalkan hadduu ku soo gaaray walaalo badanaa maanta halis badan ku sugan muuqaalkan iga gaarsiiyey ugu yaraan 10 qofood u sheergaray waxaa laga yaabaa soonkooda ajirkiisa inaad sabab u noqoto nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man laciba binnardi qofkii ciyaara laadhuuda faqad casa allaaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu ku caasiyey bal fiiriya maalmaha caadiga ah laadhuu haddaa iska ciyaarto ilaahay iyo rasuulkiisa ku caasisaa lagu dhahay bal ka waran bisha barakaysan ee ramadaan oo ajir fara badan ay ku jirto oo ay tahay bishii qur'aanka uu soo degay haddii aad laadhuu iyo maalayacni isku mashquuliso nebigana calayhi salaatu wasalaam waa ogtihiin asigoo membarka taagan inuu 3 mar dhahay aamiin 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 markay saxaabada weydiiyeenna wuxuu ku jawaabay jibriil calayhi salaam ayaa wuxuu dhahay qofkii bisha barakaysan ee ramadaan soo gaarto aanay ka faa'iidaysanin naarta allah ku fogeeyo nebigana aamiin uu dhahay bal ka waran haddii ay ku soo gaarto ramadaan haddana ay ka faa'iidaysan weyso ilaahay aan ka magangelaynaa cadaabtiise aan iska ilaalino laadhuuda iyo waxa la midka ah ee qashinka ah ee soonkaaga ajirkiisa nusqaaminayo